بسم الله الرحمن الرحيم. mudanayaal iyo marwooyin, marti sharafka, dhalinyarada, culummada sharafta leh iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha kulankan qiimaha badan, waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. salaan kadib, waxaa mahad idilkeed u sugnaatay allah subxaanahu wa tacaalaa naga dhigay islaam, oo aan naga dhigin dabacaabud iyo dibicaabud. halkan waa markaska tawxiid, waa baraarujiyaha ummadda, waana kobciyaha maskaxda. waxaa idin leeyahay kusoo dhowaada gacmo furan iyo qalbi furan. mar labaad iyo mar saddexaadba waxaa mahad iska leh allah noo suurogeliye inaan iskugu nimaad kulankan qiimaha badan. waxaan sidoo kale u mahad celinayaa maamulka markaska tawxiid, waxaana leeyahay jazaakum allahu khayraa. sidaa darteed, waxaa muhiim ah inaan ka faa'iidaysano culummada wixii ay noo sheegayaan, maxaa yeelay horaa waxaa loo yidhi xiri intuu da'a ayaa la doogsadaa. sidaa darteed, waa inaan si fiican u dhagaysanaa culummada wacdigooda, oo aan la nimaad maskax fiican iyo qalbi xaadira, oo aan la noqonin maqano jooga looga sheekeeye wixii uu maqlaayay. taasina waa qalad xaqiiqdii. marka culummadeenna allaha noo xafido, cimrigoodana allaha barakeeyo, anagana ilaahay hanaga dhigo kuwii uu yidhi aladiina yastamicuuna alqowla fayattabicuuna axsanah. وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.